kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ee maanta. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Azimio la Umoja Raila Odinga oo sheegay in aanu aqoonsanayn madaxweyne Ruto iyo dowladdiisa. Madaxweyne Ruto oo ka jawaabay hadalka Raila Odinga. Madaxda ugu sareysa dowladda Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweyne Mustafa oo ka qayb galay goob lagu soo bandhigay waxqabadkii 6 bilood ee dowladdiisa. iyo barasaabka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir oo qaabilay koox farsamo oo ka socday hay'adda FAO. Aan ku bilownay hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja Kenya Raila Odinga ayaa maanta ku dhawaaqay inuusan aqoonsanayn dowladda uu madaxweynaha ka yahay William Ruto oo ah ninka uga guuleystay doorashadii madaxweynaha ee Kenya ka dhacday bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaafay. Odinga oo kulan isu soo baxa ku qabtay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda ay Soomaalidu degtay ee Islii ayaa arintani u sababayay waxa uu yeeray natiijo sharci darro ah oo ka soo baxay doorashadii sanadkii hore. Isugu yimid garoonka Kamakunji ayuu u sheegay in isbahaysiga ay dowladda hadda jirta u arkaan mid aan sharci ku dhisnayn. Ugu horeyn